marka qofka saaxiibkiis sida u saameynayo ayaa halkaa laga qaadanaya oo qofka caqiida duwan oo caqiida qaldan haysta oo caqiida qaldan aaminsan hadduu qofku ag jooga ama uu la saaxiibo amaba ay ruuxii dumarka ahaa nin ka dhigato ama ninkii xaaskiisii uu ka dhigto waxa weeyaan ama uu saaxiib qofku ka dhigto ama uu sheekh ka dhigto cilmi uu ka qaato hadduu doono cilmigaasi ha aaday cilmigan caqiidaba aan ahayn oo cilmi kaleba ha noqday wuu saameynaya markuu saameeyo qofkaasi qofka waa jeclaanaya wuu soo dhowaanaya afkaartiisii baa si yar ugu soo siqaysa ilaa qofka qaldan kan toosani uu la caqiidanado marka dambe ilaahay subxaana wa tacaala hadduuna ka badbaadin sida ogeed ahlucilmigu waxay tilmaameen in fara badan kutubu alcaqiidati wasunnati ay ku caddeeyeen oo mudawan ku ah inay aada iyo aada uga hadleen ugana digeen in dadka caqiidada qaldan aaminsan layska jiro layska ilaaliyo maantana tacaynkaasiya mid layska fudaydsanayo oo layska sahashanayo oo bal lala yaabayo cidda tiraahdo qofkii caqiide qaldan aaminsan war ha layska ilaaliyo oo yaan laga ag dhowaanin si caqiidadaada una kaaga saameyn in kuwaa lala yaabo ayaa heerku uu maraya oo la yidhaahdo waxa weeyaan cidna waxba ha ka sheegin ciddii wax sheegayso oo dhanba wax ka baro cid walba wax ka qaado cid walbaaba sheekha kuu noqoto ha kala qaadqaadin ha kala qaadqaadina ha kuu sinaadaan culummada ha kuu sinaadaan hadduu khaariji yahay ka waran oo caqiidatulkhawaarij uu dadka barayo ama uu aaminsan yahay kaa wax ma laga baranaya ma loo dhowaanaya ma la odhanaya waa sheekho saxiixulbukhaariguu dhigaayo saxiixu muslimkuu dhigaayo si fiican buu u dhigaa isagoo caqiidatulkhawaarij aaminsan ma la odhanaya waa iska caadi maxaa sheekha kugu diray iska dhaaf hadduu ashcari yahay caqiidatul ashaaciro aaminsan oo tacaynkaasiyaa dadka u dhigaya oo fursaduu helaba uga faa-iideysanaya caqiidada qaldan inuu ardaydiisa u dhex dhigo isagoo hadduu dano waxyaabo kaleba u dhigaya laakiin ku dul dabaqaya leanna waxaa iska caadi oo la yaqaanaa qof kastaa wuxuu aaminsan yahay wuxuu jecel yahay inuu dadka kala gaadhsiiyo uu u sheego adiguba waxaad aaminsan tahay qofka kale waad u sheegaysaa waxaaganaad aamintay inuu kula aaminaad jeceshahay sax baad u aragtaa fursad aliya fursadaad hesho oad uga faa-iideysanaysaa markaa ma la odhanayaa qofkii ashcariya oo caqiidatul ashaaciro aaminsan oo intaasoo meelood oo kala duwan sunnadii ku khilaafsan waxa weeyaan waa iska caadi wax caadiya ma laga soo qaadaya iyadoon laga digayn iyadoon la iska ilaalinayn xataa bal dareenuun inaan laga sameynayo waxoogaa falcelin inuu qofku is ilaaliyo wax caadiya laga soo qaadayo caqiida aljahmiya alictizaaliya cidda aaminsan ma la odhanaya waa caadi qof kastoo caqiidadiisu ay qaldan tahay in layska jiro o layska ilaaliyaa waajiba cidda nusxi ilaahay subxaana wa tacaala awgii dadka ugu nasteexeynaysaana una qofku eegin waxyaabo kale ilaahay daraaddii subxaana wa tacaala waxa qaldan uu qofku uga digo cilmiga uu kaasi kaala maqan yahayna waxa weeyaan cid kale oo ka khayr badan ayaad ka helaysaa biidn illahi tacaala oo inaga arkana nin weyn oo caalima oo aqoon leh oo gabadh guursaday sida u saameysay keligiina ma aha intaasoo ninoo culumaa la sheegay siirada oo culumo aha oo aqoon badan lahaa oo gabadh guursaday ka caqiida duwaneyd deetiyada gebigoodu bay bedeshay alquluub bayna usbuucayn min asaabic araxmaan yuqalibuha kayfa yashaa inuu qofku is-ilaaliyo markaa arrin muhiima weeyaan waxyaabaha qaar aan la sahlin baa jiro wax fudud aan laga soo qaadin laakiin dadka dareenka caqiida markuu agtooda ku yaraado ama waxyaabaha ay qiimeynayaan wax kale uu noqdo wax walba inay sahlaan baa laga yaabaa nacam almuhim cimraan ibnu xitaan ninkaa cimraan qolada asufariya inuu ahaa ayaa markaa la sheegay gabadh uu guursaday sababteedna khaarijiga uu ku noqday ilaa markii dambe uu noqday mid amaana oo aada iyo aada u amaana cabduraxmaan ibnu muljam ninkii khaarijiga ahaa
علي ابن أبي طالب دلي رضي الله تعالى عنه أي أبو أماني فكاسا واحا قبقي سكمدها يا ضربة من تقي ما أراد بها وصيفتي وكل فتي عبد الرحمن ابن ملجم علي رضي الله تعالى عنه أي أبو أماني فكاسا واحا كليه الله ضربه يكل فشو ننتقي إلهي كعب سنة يا حقيسة إلهي كعب سنة يا حقيسة كأهاتي ولا شيء إلهي أكتي سرها للنقشين وكجار موياني وصيفته كله فتاع عبد الرحمن كاسي علي رضي الله عنه فسواح كلية عبد الرحمن ابن ملجم دفشدوا كله فتاي علي ابن أبي طالب إلهي بوجود دواني وحكى له ولا مو شيء ربي يجيب بوجود دواني كاسو أمانية عقيدة قلدنيت بحالك هالقش وحكم ذاك وحها الخوارج كو الله يقانو الإباضية الإباضية أي كمدة